بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan warkan yarka oo kooban aan rabaa ummadda Soomaaliyeed in la wadaago dhacdo xanuun badan oo dad Soomaaliyeed soo gaartay waxa wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo wargeliyay 23 bisha November 2024 oo shalay ahayd laba doomood oo ay saarnaayeen dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo meesha ay ka baxday ama ay ka baxeen iyo meesha ay u socdeen aan ilaa hadda la garanayn in ay ku qallimeen oo ku rugmadeen xeebtan badweynta India gaar ahaan agagaarka dalka Madagascar la yiraahdo doomaha sidana la ku soo wargeliyay mid kamid ah waxa saarnaa 38 qofood oo la aaminsan yahay intooda badan inay Soomaali ahaayeen mid kamidana waxa saarnaa 32 qofood oo ayadana intooda badan la aaminsan yahay inay Soomaali ahaayeen dowladda Madagascar waxay nagu soo wargelisay in doomahaas qallimay tan 38 qof ay saarnayd in 15 kamid ah ay dhimatay tan 32 qof ay saarnaayeenna in 9 kamid ay dhinteen isugeynta ama wadarta guud oo dadkaasina ay yihiin 24 qofood inay halkaas ku dhinteen halka ay ka badbaadeen 46 qofood inkastoo ay jiraan qaar hadda dhibaatadii iyo waqtigii ay ku jireen badda dhibaatooyin ay ka soo gaareen oo la dabiibayo safiirkeena Addis Ababa safaaraddeena halkaas joogta iyo xeer ilaalinta qof ka socda ayaa rajaynaynaa inay u duulaan birito haddii la yiraahdo oo ay halkaas tagaan soona baaraan soona ogaadaan kor tagaanna xaaladda meesha ka jirta dadaal xoog leh ayaa labadii casho la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ay waday gaar ahaan safaaraddeena Addis Ababa iyo centerka wasaaraddu halkaan nagala soo xiriirayay iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiisyo kale intaba dhammaan shaqo adag ayaa la waday in dadkaas dib loogu soo celiyo dalkoodii marka la kala hufo oo la ogaado inta Soomaalida ah iyo inta kale tuhun waxa ah in dadku aysan wada Soomaali ahayn oo dad kale ay ku jiraan oo Ethiopian iyo wax la mid ah inay ku jiraan dhammaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii la yiraahdo inay dadkaasi la keeno oo gurmad dowladda Soomaaliya ay fidiso in magaalada Muqdisho la keeno halkaasna dadka wixii daawo u baahan la daaweeyo wixii kalena maaragtay ay reerahoodii dib loogu celiyo marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin arrintaas isha lagu hayaa waxaan u sameynay guddi gaar ah oo xaaladaas la socda oo waxa laaliyo wixii ku soo kordha mar walbaba aan la wadaagi doono dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inta soo badbaadayna caafimaad inta dhimatana waxa leenahay Ilaahay ha u naxariisto dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan ku dareynaa intaas inaysan naftooda ku haligin khatar caynkaas oo kala haddii ay jiraan kuwa kale oo hawada ku soo jira ama kuwa kale oo maaragtay soo socda ayaga in arrintaas maaragtay ay ka waantoobaan khatartaas xoog leh oo ay u bereerayaan waxaa jira kuwa kale oo aan xogtooda aysan soo dhammaystirnayn oo Morocco ayagana agtooda xeebaha badaha halkaas ku yaala dhibaato ku soo gaartay oo safiirkeena Morocco joogaan ku amarnay inuu halkaasi tago oo ka soo warbixiyo marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa Ilaahay dalkooda inuu jeclaysiiyo dhalinyaradana waxaan leenahay inaan nolosha isbedel ku sameyno qayb baan ka noqon karnaa qayb baan ka noqono aad iyo aad baa u mahadsantiin